Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadanaa buugga Home of Matches. Buuggan waxaa qoray Tirtor Spen Johnson. Buuggan 30 milyan oo ku dhowaad ah ayaa la koobigareeyay, wuxuuna ka mid yahay buugaagta caalamka ugu iibsida badan leh. Buuggan waxaa la qoray 1998. Buuggan wuxuu ka hadlayaa sidii uu qofku ula qabsan lahaa isbedelada artiisa ka dhacaya. Isbedelku waa waxa dhaca weligiina dhacaya oo aan sinaba looga fiirsan karin. Dad badan ayuu welwel iyo baqdin ku abuuraa, balse maadaama isbedelku yahay wax dhab ah, runta in laga weecweecdo marnaba ma habboona. Inagoo aan doonayn diyaarna aanan u ahayn ayuu isbedelku dhacaa, lamana yaqaano siduu noqonayo iyo saameynta uu nagu yeelan doonana midnaba. Waxa berri iyo saa dambe dhici doona lama ogaan karo, oo xikmad baa ku jirta inayna laga qariyay si aanu welwel iyo walbahaar uga qaadin. Isbedelku nafta oo kaliya kuma dhaco, ee nolosha nagu hareeraysan oo dhan ayuu ku dhacaa. Noloshu waa waddo aad ku socoto haddana aadan arkayn, kuna caddayn qaxar iyo qodxo badan leh. Qof walba oo inaga mid ah wuxuu leeyahay nolol u gaar ah, qofkuna isaga ayaa qorshaysta noloshiisa sida ay noqon doonto. Waana mid ka mid ah casharada laga baran karo sheekadeenan kooban ee buuggan ku qoran ee ku soo dhowaada. Beri hore dhul aad u fog waxaa ku noolaan jiray 4 noole oo yaryar. Waxay deganaayeen meel leh godad isku weer ah sida shaxda oo kale ah. Laba ka mid ah noolayaasha ayaa ahaa jiir. Waxaa la odhan jiray Senfit iyo Sorage, halka labada kalena ay ahaayeen 2 cilin oo yaryar. Inkastoo labadaas cilin aysan xajmi ahaan labada jiir ka weyneyn, haddana waxay u dhaqmi jireen sidii aadamaha maanta jooga oo kale, waxaana lagu yeedhi jiray magacyadooda Hem iyo How. Noolayaashaas 4 ahi yaraantoodii awgeed may fududayn in la dareemo dhaqdhaqaaqooda iyo waxa ay samayn doonaanba. Hase ahaatee, kolkii aad si dhab ah ugu kurgasho ayaad ka ogaanaysaa waxyaabo badan. Maalin kasta jiirka iyo labada cilin waxay waqtigooda ku bixin jireen shaxda dhexdeeda iyagoo raadinaya burcadka macaan ay aadka u jeclaayeen. Labadii jiir ee Senfit iyo Sorage oo aan aad u sii fikirin balse leh dareen dheeri ah iyo ilko yaryar oo seef ah ayaa raadiya burcad macaan oo ay aayar u googoostaan sidii jiirkaba lagu yaqaano. Labadan cilin ee Hem iyo How oo kaashanaya caqligooda ayaa iyaguna dhinacooda kale ka raadiyay nooc burcadeedka ee ay jeclaayeen. Inkastoo labada jiir iyo labada cilin kala duwan yihiin, haddana waxay ka simnaayeen kalihida subaxii, iyagoo gashanaya dharkooda iyo kabahooda orodka. Guriga ayay ka tegi jireen aroortii si ay u soo helaan burcadka koox waliba sida gaarka ah u xiiseynayso. Shaxdu waxay ka kooban tahay marino iyo qolol isku soo noqnoqonaya oo mugdi ah. Marinada qaar ayaana meelna teginba oo ila meereysa ah, halka qaar kalena ay maran yihiinba, qaar kalena uu ka buuxo burcad macaan. Shaxdan ayaa ah meel si fudud lagu lumi karo, balse qofkii nasiib leh uu ku noolaan karo nolol wanaagsan. Labadii jiir ee Senfit iyo Sorage waxay sameeyeen isku dayo badan oo ay ku baadigoobayaan burcad, iyagoo aan meelna waxba ku ogeyn. Marinada ayay iskaga kala gudbayeen iyagoo burcad raadinaya. Kuwa ay wax ka waayaan marinadana kuma ay soo noqon jireen, wayna ay u sii fiirsan jireen iyagoo xasuus og. Senfit isagoo adeegsanaya sankiisii fiiqa ayuu soo uriyay jihada uu ka jiro burcadku, kolkaasuu Soragena hore ugu sii dhaqaaqay meesha uu saaxiibkii sanka ku sahaminayo. Marmar badan ayay lumeen sida aad jiirba ka filanaysid, iyadoo jiha khaldan qaaday. Marmarka qaar derbi adag ayay ka soo gooyi jireen. Dhinaca kale, labadii cilin ee Hem iyo How waxay adeegsadeen qaab ka duwan labadii jiir ay wax u raadinayeen. Badanaa waxay kaashadaan awoodooda maskaxeed iyo waayo-aragnimadooda hore si ay u helaan burcadka ay doonayeen. Inkastoo ay marmarka qaar ay warwari jireen oo fikiri jireen, markastoo ay ka tan badato aaminaadda sidii in ay fashilmeen oo kale, way sii soconayeen iyadoo isku dirqinaya. Ugu dambeyntii, maalin maalmaha ka mid ah, dhammaantood labadii cilin iyo labadii jiir ayaa si lama filaan ah waxay u heleen
burcadkii ay doonayeen waxayna ka heleen dhammaadka marinka saldhigga burcadeedka loo yaqaano C. Subax kasta wixii intaa ka dambeeyey, afartii noole waxay u jarmaali jireen dhinaca iyo goobtii burcadku yaalay saldhigga burcadeedka C iyagoo ku labista dharkooda iyo kabahooda ay ku ordi jireen, waxayna u noqotay dhaqan joogto ah. Labadii jiir ee Sinfit iyo Sorge weeye waxa ay sii wateen dhaqankoodii ahaa in ay toosaan subax kasta una degdegaan dhinaca iyo burcadka iyagoo raacaya isla wadadii ay mari jireen. Markii ay gaaraan goobtii burcadka ayay iska bixin jireen kabahoodii orodka, qoorta ayay suran jireen. Marka ay noqoto inay dib ugu xirtaanna si aysan meel fudba uga raadin kabahooda, qoortooda ku xidheen kabahoodii. Markaasi ayay ku raaxaystaan dunida burcadka. Afkoodii yaraa ee dhoobnaana ay ku daldaleen burcadkii. Sidoo kale waagii hore subax kasta Hem iyo How waxay u degdegi jireen dhanka iyo saldhigga burcadeedka C si ay ugu raaxaystaan dhadhanka macaan ee burcadka. Hem iyo How waxa ay bilaabeen in ay soo toosaan subaxii xilli dambe si ay aayar u labistaan, dabadeedna si goob gaabis ku jiro ugu dhaqaaqaan goobtii burcadku yaalay. Ileen haatan meesha uu burcadku yaalo iyo halka loo marayaba way yaqaanaane. Wax fikir ah kamaana haysan halka uu burcadku ka yimi iyo cidda keentay toona meesha. Kaliya waxay u qaateen inuu halkaas burcadku iska oolayo doono weligiiba. Kolka ay Hem iyo How soo gaaraan subax hore saldhigga burcadeedka C way iska kala daadin jireen. Markii kabahooda iska bixiyaan way ku yaaci jireen dhankaas iyo burcadka, halkaasayna geli jireen sidii laba qof oo jooga gurigooda oo kale ayay u dhaqmi jireen. Hem ayaa intuu jeega isku tuuray yiri, horta nolosha aan ku jirno macaana, waxaynu haysanaa burcad inagu filan oo aan weligiina inaga dhammaanin. Labadii ilin waxay dareemeen raynreen iyo guul wax weyn ah inay gaadheen. Kama aysan qabin inuu mar uun waayi karaan burcadka, niyadoodana kuma soo dhicin. Ugu dambeyntii Hem iyo How waxayba u qaateen inuu burcadku weligiiba saldhigga burcadeedka C uu iska oolayo aan weligiina dhammaaninba. Dhinaca kale Sinfit iyo Sorge waxay sii wateen dhaqankoodii joogtada ahaa. Waxay yimaadeen subax kasta aroortii hore iyagoo indhaynaya, urshasho ku sameynaya agagaarka burcadka ee C iyagoo ku kurgalaya bal haddii uu jiro wax isbeddel ah uu ku yimaado burcadka. Kolkaasay u fiirsan jireen bal sidii ay u ogaadeen hadduu wax isbeddel ah uu jiro. Aroor dambe ayay yimaadeen saldhigga burcadeedka C oo aan wax burcad ah oo limba. Waa labadii jiir Sinfit iyo Sorge. Labadii jiir ee yaryaraa lama aysan yaabinba arrinka dhacay, maadaama ay iska ogaayeen inay kaydku iyo saadku burcadku maalinba maalinta kasii dambeysa uu sii yaraanayay. Lama aysan yaabin, wayna u diyaargaroobeen natiijada lama huraanka ah ee soo dhow. Dareenkooda taagan oo ay kasii fikirayna wax allaale waxay kasii fikirayna ma jiro. Way ogaayeen inuu maalinba maalinta kasii dambeysa sii dhimaya saahida iyo saldhigga burcadeedka C burcadka yaala. Inta kabahooda xadhka u adkaysteen ayay hore uga sii socdeen. Labada jiir wax falaqayn badan ah ma ay gelin, ismayna odhan maxaa dhacay iyo burcadkii yaa qaatay. Waxa ismay weydiin oo horeyba kasii dhaqaaqeen, wax falaqayna ma ay gelin. Isla maalintaas goor dambe ayay yimaadeen Hem iyo How saldhigga burcadeedka C iyagoo waagii horeba uma aysan fiirsan jirin isbeddelka maalin walba ka dhex dhacayay saldhigga burcadeedka C. Waxayna u haysteen inuu burcadku uusan marnaba suurtagal ahayn marun inuu dhammaanayo. Labada cilin ee yaryar diyaar umaysa ahayn ka filcelinta wixii ay meesha ku arkeen. Hem ayaa kor u qayliyay, waaryahe waa maxay sidani, yaa qaatay burcadkeeni? Hem ayaa kor u qayliyay. Hem oo hadalkiisii wata ayaa yiri, waaryahe yaa qaatay burcadkii? Hemna uu iska baroortayba, heer wejigiisa casaaday, casaanna isku beddelay. Saaxiibkii How isagu madaxa unbuu is hayaaba,
isagoo waxaanba dhalanteed u arka wuxuuna aaminsanaa inaan marnaba burcad laga waayin saldhigga burcadeedkaasi ay ka heli karaan haddii ay dhaqaaqaan. How oo ugu dambeyntii indhaha kala qaaday oo hareerihiisa eega ayaa yiri, waaryahay horta Sinfit iyo Sorge meeye, ma laga yaabaa in ay og yihiin waxaanan labadiina ogeyn? How baa sida yiri. Hem ayaa si jees u yiri, oo maxay ogaan lahaayeen, waaba laba jiire. Hem oo hadalkiisii sii wata ayaa yiri, iyagu waa jiirar uun, waxay ka falceliyaan oo keliya waxa dhaca. Si inagu dad ayaanu nahay caqli badan, iyagana waynu ka duwannahay, wixii dhacayna waynaan fasiraad u helaa. How ayaa u jawaabay oo yiri, waan ogahay inaynu nahay dad wanaagsan oo caqli badan, balse hadda uma muuqato inaynu si caqliyeysan u dhaqmayno. Isbeddel ayaa halkan ka dhacay, waana aynu isbeddelnaa oo aynu samaynaa wax isbeddel ah, dibna aynu hore u socnaa. How ayaa weydiiyay Hem, halkee ayaan dhignay dharkeennii iyo kabaheennii orodka, inkastoo ay dharkoodii iyo kabahoodii meel iskaga tuureen waagii saldhigga burcadeedkaasi ay ka xamaalin jireen. How ayaa weydiiyay ku yiri, halkeen dhignay kabaheennii orodka, uuna ugu dambeyntii helay kabihiisii orodka ayuu xadhka u geejistay. Kadibna How waa ku yiri, ma kaa dhabbaa inaad mar labaad doonaysid inaad baadi goobtid, maad halkan iska joogtid intuu burcadku inoo imanayo? Intaasaa la soo celiya. Wax badan weli ma aadan fahmin, aniguba ma doonayo inaan mar labaad dharkii iyo kabahayga ku noqdo. Haddana waxaan ogaaday inuusan burcadkaas dib dambaysa u soo noqonayn. Burcadkaas wuxuu ahaa kii shalay, haddana waxaa la gaaray waqtigii aynu burcad labaad oo cusub doonan lahayn. Hem ayaa ku dooday oo yiri, oo kaalay bal ka waran haddaad weydidba burcad oo aad iska socotid? How oo ku jawaabay, taas ma garan karo. How taa lafteedu su-aasha marmar badan ayuu isweydiiyey, wuxuuna ka cabsi qabay, bal iminka haddaad socotid keliya burcad kale soo weyda, cabsi baa gashay How. Ugu dambeyntii How wuxuu qaaday waddada uu ku raadin lahaa burcad cusub. Marka uu wax xoogaaya uu sii yara socday ayuu waddada ka helay midhar burcad ah oo ku daatay. Dabadeed inta uu qaarna cunay qaarna uu jeebkiisa ku soo guray ayuu saaxiibkii Hem u keenay, wuxuuna ku yiri, maaragtay tallaabadii ugu horreysay isku day aan galay waaniya burcad ku soo helay. Balse saaxiibkii Hem uu ka diiday, wuxuuna ku jees anu burcadkanu ima dhandhamaya, kii saldhigga burcadeedkaasi ka dhammaaday ee laga qaaday ayaan doonayaa buu yiri, kanu ima dhandhamaya, wuuna ka diiday. Markii How uu arkay inuu saaxiibkii How aanan waxba laga dhaadhicin karin, oo keliya ta markuu arkay inuu saaxiibkii Hem wax walba iska indha tirayo, ayuu waddadii u dhex qaaday keliyata waddadii shaxda. Cabsiyo badan ayaa soo wajahay Hem, balse ismuuna dhiibin, waddadii ayuu ku sii socday. Intuu waddada ku sii socday, gidaarba gidaar ayuu wax ku sii qorayay, wuxuu casharada uu ka qaadanayay isbeddelka ku dhacaysa iyo saaxiibkii. Gidaarku marba orahayo ugu sii qoraa siduu saaxiibkii hadhow usoo tixraaco hadduu bal maruun isku dayo inuu isbeddel u sameeyo. Orahyadana waxaa ka mid ah, haddii aad isbeddel samayn weydo, dabargo ayaad halis ugu jirtaa buu ku qoray. Marka aad ka guulaysato baqdinta ku haysata ayaad xornimo dareemaysaa. Baqdintii uu haysatay waxaa ka mid ahayd markii saaxiibkii How ku yiri, arbaad burcad kale soo weydaa, maxaad shaxda ka doonaysaa, dib ugu noqonaysa? Markaasuu cabsi u dareemay. Iyo markuu waddada uu sii socday, waddada shaxda uu ku sii socday ayuu yara cabsi dareemay. Balse wuxuu yiri, marka aad ka gudubto baqdinta ku haysata ayaad xornimo dareemaysaa. Isna uu ka guulaystay baqdintii. Sheekadan runtii waa sheeko malaayiin qof noloshoodii bedeshay, waana buugga caalamka ugu iibsida badan leh, Home Movies. Haddaba su-aashaad isweydiinaysid waxay tahay, buuggan ma ku qoran yahay afkeena Soomaaliya, afkeena hooyo gaar ahaan? Su-aashu waxay tahay, haa, afkeena hooyo uu ku qoran yahay buuggan. Buuggan waxaa ku qoran afkeena hooyo lagu qoray, yaa qaatay burcadkaagii ayaa ku qoran buuggan, waana ka shaashada iga muuqda. Haddaad su-aashaad kale aad isweydiinaysid waxay tahay, xaggan ka heli karaa hadduu afkeena hooyo uu ku qoran yahayba? Waxaad ka heli kartaa Iqra Books ayaad ka heli kartaa. Haddaba sheekadan adu maxaad ka faa'iiday? Waxaad ka faa'iiday commentida nagu reebaysaa. Waxaan ku baraarujinayaa haddaad channelka ku cusub tahay,
subscribe basaaraysa haddii hore noola joogtana muuqaalka leed basaaraysa inta muuqaalka xigaan isugu imana waxaan iga tegayaa amaana allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.